because inantii markay caruur dhasho ilaa 3 caruura way yaranaxaysaa way iloobaysaa marka hadda inay silowdo maaha markaan hablo badan aan qiimeeyay asxaabtayda familygayga inta badan aan u fiirsaday admaya walaalo kulli horto inay ilaahay baa isku keenta la galay soo jiidashada dumarku in raguna isku qurxiyaan dumarkooda ilaahay baa bada quraankiisa ku sheegay kitaabka lagu sheegay ay raguna isku qurxiyaan dumarkooda dumarkuna isku qurxiyaan ragooda taas waa caadi rag iyo dumar bayna wada dulweyno jirka la dhiso waa loo baahan yahay waxaan ugu bashaarinayaa dhammaan haweenweynaha Soomaaliland in maalinta isniinta hadii ilaahay oo ah usbuuca dambe 4 galabnimo iyo goobtan iyo batalaale in iskugu soo baxaa dhammaan haweenweynaha Soomaaliland kale jimicsada si qurux badan jirkiina oo caafimaad leh u dhisa si joogta waa inaad u timaadaan xaggan batalaale 4 galabnimo iyo maalinta isniinta hadii ilaahay liibaano qaar kamid ah hablihii iyaguna goobta ku sugnaa ayaa ka hadlay sababaha ku kalifay inay lugeeyaan iyo waxyaabaha iska bedelay muddadii ay lugeynayeen waa soo dhaweynaya barnaamijkan in badan waan ku jirnay 3 years soconay ma sha Allah waxaan leeyahay hablaha jirkeena dhisa qurxiya ku soo dhawaada waxaan u lugeynayaa ay igu kalifay inaan lugeeyo inaan baruurta iska rido sababtan baruurta iska riday waxa weeyaan caafimaad badan baan helayaa jirkaygu qurux badnaanaya waxyaabo fara badan baan ka faa'iidayaa sida daraadeed baan u jeclaystay inaan lugeeyo waxaan leeyahay hablaha Soomaaliland hooyooyinka iyo hablahaba ku soo dhawaada barnaamijka ila lugeeyo kaalay naftaada caafimaadkaaga ilaali oo quruxdaada ilaali muhiim bay noo tahay inaynu dad caafimaad qaba maskaxiyan iyo jiriyanba aynu noqono lugtuna waxay noo sahlaysaa wax fara badan oo caafimaadkeena kamid iyo quruxdeena kamid anigu muddaan lugeynayay xoogaa baan lugeynayay si fiican baan lugeynayay hilib badan baa iga dhacay laakiin imika muddaan fadhiistay waxaan luusgareeyay 18 kg deetana waan 3 sanadood oo consecutive ma lugeynay imika dan imikan soo celinaya insha Allah biidnillah kareem waxaanan hubaa in lugtu ay wax walba ka muhiimsan tahay waxaan idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka kale lugeeyo iyo batalaale marka laga yimaado in haweenku ay ka helaan caafimaad sidoo kalena ay dhimaan miisaanka jirkooda waxa jira arrimo kale oo ay lugtu muhiim ugu tahay haweenka liban isman ali television ka real